cadow macalin ibraahim waxa uu wajahay mid ka mid ah caqabadaha ugu adag noloshiisa kadib markii uu gabahaanba waayay awoodii uu ku socon jiray buro weyn oo dhabarka kaga taalay ayaa si xun u cadaadisay xangulaha dambe ee dhabarka taasoo keentay in neerfihii muhiimka ahaa ay shaqadii joojiyaan inkastoo xanuunkiisu aad u darnaa cadow marna ma uusan lumin rajadiisa wuxuu safar dheer uga soo kictimay magaalada baydhabo isagoo rajo weyn ka qaba inuu helo daaweyn dhaba oo bedeli karta noloshiisa markii uu yimid isbitaalka kalkaal waxaa si degdega loogu sameeyey baaritaano iyo qiimeyn caafimaad oo qoto dheer kaaliye profesor dr adlo shirays oo hogaaminaya hawsha qalliinka ayaa sheegay in qalliinku ahaa mid xasaasi ah balse guushiisa ay suurtagelisay sababo la xiriira waqtiga degdega ee loo fuliyey qalliinka iyo xirfadda sare kooxda caafimaadka isbitaalka kalkaal qalliinku waxaa ku soo dhammaaday guul weyn cadowna hadda waxa uu dareemayaa horumar muuqda waana kan isagoo si farxad leh uga warramaya xaaladdiisa caafimaad kadib qalliinkiisa magacayga waxaa la dhahaa cadow macalin ibraahim waxaan ka imaaday magaalada baydhabo dhaawac iga soo gaari dhaawacaasna waxay ahay buro iga baxday dhaliimaha la igu sameeyey isbitaalka waxaa la dhahaa kaalkaal hadda alxamdulilah waa ka caafimaaday kiis tarbiyaan ku jiraa kiis tarbiyadna alxamdulilah waa ka caafimaaday wixii dhan waa ka guulaysanay